magaalada Dila ee gobolkan Awdal waxaa ka dhacday munaasabad balaaran oo lagu furayo xafiiska cusub ee ururka siyaasiga ah ee nabadda iyo horumarka ee dalsan uu ku yeelan doono magaaladaasi Dila ee gobolkan Awdal. munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan ururka siyaasiga ah ee dalsan, culumaa u diin, waxgarad, siyaasiyiin, aqoon-yahano, haween, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Dila ee gobolkan Awdal. munaasabadan oo aad u balaarneed waxaa xafiiskan xariga ka jaray gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi dalsan mudane Sacad Sheekh Cabdiraxmaan Qaadi, waxaana ugu horeen munaasabadani furitaankeeda ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan ururkaasi dalsan, waxayna hoosta ka xariiqeen inuu ururkooda u taagan yahay nabadda iyo horumarka Somaliland. ururkan dalsan Sacad Sheekh Cabdiraxmaan Qaadi gudoomiye ku-xigeenka waxaan idin rajaynayaa insha Allah inaad gargaartaan Sacad khaasatan reer Dila ayaan rajaynayaa isagoo taariikh dheer ku leh muxuu ahaa gobolkan waliba siiba Dila in la gargaaraan doonaya muxuu ahaa ururkaas. waxaan idin rajaynayaa muxuu ahaa ururo badan oo soo mar doona inaad kulliba urur walbana waa la taageeray laakiin khaasatan in ururkaas aad loo taageeraan jecelahay muxuu ahaa dhammaantiin waad aragtaan astaantiisa waxay ka turjumaysaa nabadda iyo horumarka. annagu siyaasadda kuma cusbin, anu waxaan ka soo jeedaa anoo ururkan gudoomiye u ah gobolka, waxaan ka soo jeedaa marxuun aadan isaaq baan ka soo jeedaa. taariikhda aan u leenahay Dilana sidaas daraaddeed waxaan aad iyo aad ugu faraxsan soo dhaweyntaadna soo dhaweyseen ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay. hadda kadibna waxaan jecelnahay annagoo xafiiskii maanta ka furayna magaalada Dila inaad walaalahayow dee xisbiyada kaleba idin imanayaba waan idinka xignaa. sababta aanu maanta Dila u nimidnay waa taa ee horta kowgii inaan xafiisyadii gobolka aan ku soo horreysiino degmada Dila iyadoo ay tahay meelaha muhiimka ee siyaasadda laga daneeyo. sidaa awgeed xafiiskii baanu nimidnay sidii loo furi lahaa, sida fiican aad noogu soo dhaweyseenna waad ku maatantihiin dadweynihiinna degmada Dila. gudoomiye ku-xigeenka ururkan nabadda iyo horumarinta ee dalsan mudane Sacad Cabdiraxmaan Qaadi oo madashan gabagabadeedii ka hadlay ayaa waxa uu si weyn ugu mahadceliyey bulshada ku dhaqan degmadaasi Dila, wuxuuna ka sheekeeyey ujeedada aasaaska ururkooda iyo waxyaabaha uu qaban doono. waxaan meeshan u nimid inaan maanta furno xafiisyadii degmooyinka Dila. waa degmadii ugu horeysay ee soo gaarnay imika aanu furayno. waxaan ugu horeysinay sidii uu Ismaaciil Beedi sheegay dana siyaasadeed baa ku xidhan oo dhulka ugu tirada badan ee dadku ugu badan yahay weeye. xisbiga iyagu halku dhig buu leeyahay, halku dhig buu xisbiga u leeyahay. halku dhigis waxa weeye haddii ilaahay aan inuu waddankaan hagaajinayo ilaahay noo qorayna noogu duceeya markaad tukadisaan. haddii aananu hagaajinayn waddanka oo aanu kharibaynana ilaahay ba nama siiyo. marka taa noogu duceeya hadii jal xalqa